ayaan u ogaanaa aqoonta carruurta Soomaalida ee ku dhalatay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota magaalada Minneapolis xaafadda Cedar ay Soomaalidu ugu badan tahay ayaa TV-ga caalamiga Universal TV qaybtiisa North America waxa uu weydiiyay su'aalo ku saabsan isboortiga iyo taariikhda diinta Islaamka dhammaan carruurta aan weydiiyay oo da'deedu u dhaxayso 8 jir ilaa 14 jir ayaa waxay ku dhasheen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee ugu fara badan ee loo yaqaan Cedar Riverside dadka cadaankuna ay u yaqaanaan Muqdishadii yareed ciyaaraha basketballka iyo soccerka ka daawata Basketball. yaa ku guuleystay basketballka NBA-da Golden State. Golden State ma taqaanaa 5 ciyaartoy oo Golden State u ciyaarta magacyadooda Stephen Curry, KD, Jamal Black, Jamal Green, Klay Thompson, and Andrew Iguodala. su-aashaasi wiilkaasi wuu saxay 5 ciyaartoy u ciyaarta kooxda Golden State su-aashaan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa ma taqaanaa magacyadooda Abdurrahman. Abdurrahman kooxdu u ciyaaro Kevin Garnett kooxdee waa Minnesota Timberwolves. imisa ciyaartoy ayaa Minnesota ka taqaan Shan. shanta ii kala sheeg Andrew Wiggins, Zach LaVine, Ricky Rubio, Shabazz Muhammad, and Kevin Garnett. shantiba uu ka jawaabay waa oo ciyaartoyda kooxda gobolka Minnesota waxaan rabaa inaan ku weydiiyo asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam 5 ka mid ma taqaanaa Hamza, Hamza Abu Bakr, Abubakar Bilal, ilaa انت كلام ما خاني. aada u mahadsantahay Hassan. xasan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ciyaartii ugu dambeysay basketballka waa daawatay soo ma Ha. yaa kaalinta labaad galay Golden State and Cleveland. Cleveland ayaa kaalinta labaad gashay soo ma Ha. 5 ciyaartoy Cleveland u ciyaartay LeBron, aha Kyrie, aha Kevin Love, aha Tristan Thompson, aha and J.R. Smith. shantiba wuu sheegay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaciisa oo saddexan ma taqaan No. ma taqaan No. su-aashii waa garan waaye dhinaca carruurtaas waa carruurta ku korta dalka Mareykanka waxaan weydiinaya su'aalo caadiya TV. oo TV-ga ma jeceli Ha. okay su'aal waxaan ku weydiinaa dhinaca islaamka ah xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam ma taqaanaa كل ما خانة. intaa ka taqaanid ها. ii sheeg عاشا. caasha خديجة. khadiija مريم. نونا. maryam okay فاطمة. su'aal kale aan ku weydiiyo taysiya Yeah. magac Mareykan uu leeyahay taysiya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo basketballka iyo soccerka kee daawataa Basketball. basketballka ciyaartii semifinalka waxaa isugu soo baxay ciyaartii finalka waxaa isugu soo baxay Golden Stadium Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers waxaan rabaa inaad ii sheegto yaa ku guuleystay The Warriors. the Warriors ku guuleystay Golden State Ha. MVP yaa qaaday Kevin Durant. Kevin Durant ma taqaanaa shanta ugu horeysa Golden State Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Stephen Curry. The fifth one is halaa kuu dhimay Zaza. Zaza okay su-aashaasi uu ka jawaabay waxaan rabaa su-aal ku saabsan dhinaca diinta inaan ku weydiiyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam abtigiisa ma taqaan No, I nabi don't. maxamed abtigiisa ma taqaan No. okay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa ma taqaanaa Yeah, I know Ali. carruurta nabi maxamed Yeah, haye Ali Abbas and cali cabaas yeah, I don't know. aada u mahadsan yahay caliga cabaas waa carruurta ku dhalatay dalka Mareykanka ee ku nool xaafadda Soomaalida ugu badan tahay Cedar anigoo maanta weydiinayo su'aalo dhinaca diinta iyo noqonaya ciyaartoyda haddii kaleba way garanayaan laakiin marka la weydiiyo dhinaca diinta islaamka boqolkiiba boqol ma garanayaan marka waxaad ogaanaysaa carruurta ku nool dalka Mareykanka inay xoogga ay saaraan halka ay ku nool yihiin magacaaga Khalid. Khalid NBA-da
yaad cayaartooydaba ugu jecesha basketball. basketball cayaartooydee aad is leedahay NBA-da waa ugu cayaar fiican yahay As a best player right now, LeBron James. oo lebron james afartii nin ee la gashay garoonka magacadooda ma taqaan Oh, his teammates. yaa Oh, how about Kyrie, Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson. ma taqaanaa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam shan ka mid a Ha, ii sheeg like kuwa oo la socon jira. nebiga ha calayhi Waxaa waaye Hamza, Bilal, xamsa Bilal, bilaal and waxaa kaloo ka mid ah Cumar magaciisa waa kasaa laakiin ninka oo heroga camal ah magaciisa ii sheegay waxaa waaye Cumar waa Abubakar abubakar iyo hal qof oo bas aga dhiman labaa kaa dhiman laba wasako labada kale waa Khalid bin Walid ma ka tirsan yahay adiga le ii sheeg adiga inaa ii sheegto anigu ma kuu sheegayso jawaabta shan ka mid asxaabtu waa kumaan kuna ahaayeen waxaa waaye saddex saksa okay su-aasha kale ku weydiina waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa ma taqaanaa carruurtu dhalay nebiga may ma garanaysaa hawla magacyadooda ma kasay ma garanaysa ha aada umaadsanta saq absaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo basketballka iyo soccerka kee aad u daawataa basketballka tiimkee taageertaa Cleveland Cavaliers. ma taqaanaa shan cayaartooy oo u cayaaray kooxdaas Yeah, LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, Tristan Thompson, and Kyle Korver. shantiba uu ka jawaabay waa sax su-aashaan raba inaan weydiiyo waxaa waaye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa ma taqaanaa maxaa ka wada su-aashaas carruurta maxamed carruurtiisa ha waa garanaya ay ii sheeg magacyadooda ma xasuusto ha aada umaadsanta hadduu uu su-aasha u jawaabi lahaa wuxuu heli lahaa $100 ma uusan helin waxaan rabaa inaan Abdullahi. cabdullahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo basketballka iyo soccerka kee aad u daawataa basketball tiimkee taageertaa The Cavs. Cavs ma taqaanaa shan cayaartooy oo ka mid a kooxdaas Yes. ay ii sheeg shanta cayaartooy LeBron James, Kyrie Irving, J.R. Smith, Tristan Thompson, and Kevin Love. shantiba wuu ka jawaabay kooxda Cleveland oo aad u support garay marka waxaan rabaa su-aal ku saabsan dhinaca diinta in aan weydiiyo oo ah waxaad ii sheegtaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa shan ka mid a Khadija. khadiija Hawa. I forgot. I don't know. su-aasha waa u garan waaya faatax madaxweynaha dalka maraykanka ma taqaan Somalia. madaxweynaha maraykanka USA Donald Trump. Donald Trump madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. farmaajo magaciisa saddexan Maxamed. maxamed waad Cabdi. waa garan waaya su-aashaasi munasar intee ku dhalatay minnesota munasar waxa uu ku dhashay minnesota waxaan rabaa inaan weydiiyo Soomaaliya xaggee ku taallaa Africa. africa ka dhinacee South. ma taqaanaa steedyada dalka maraykanka ma kala taqaanaa saddex state oo maraykan ii sheeg oo dalkana Minnesota. california Texas. saddexda wuu ka jawaabay saddex magaalo oo Soomaaliya ka mid a ma taqaan Hargeysa. Muqdisho. Jigjiga. ma uu ka jawaabin muqdisho iyo hargeysa ayuu gartay hadduu ku dari lahaa su-aasha ama gaalkacyo wuxuu heli lahaa $100 aad baa magaca Ridwan. xaggee ku dhalatay ama Nairobi. ku dhalatay ma taqaanaa magaca nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam Nabi Maxamed. magaciisa maxamed haye Maxamed salaatu wasalaam. maxamed Cabdulmudalab. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cayaartooyga ugu caansan dalka maraykanka oo basketballka dheela magaciisa oo LeBron James. magaciisa oo saddexan ma taqaan LeBron Michael James. ma taqaanaa kooxka kooxda Celtics muxuu ahaay aada uma suge cabdicasiis magacaaga cabdicasiis intee ku dhalatay Nairobi. oo Nairobi ku dhalatay Nairobi xaggee ku taallaa Kenya. Soomaaliyana xaggee ku taallaa
Africa. africa ka dhinaca South. south Dhinaca. soomaaliya south may ku taala Kenya iyo Ethiopia dhinaca ku taala way ku xigaa. okay aada u mahadsanta xaafadana degantaa siidar sooma meeqa masjida ku taala Saddex. magacyadooda Darul Hijra, daaru hijra Shafi'i shaafici iyo Darul Qalam. daaru quba Quba ha. daaru quba saddexdooda ma tagtaa Ha. cayaartooyda okay cayaartooyda aad ugu jeceshahay cayaartooy waa Soccer. basketball I don't watch basketball. soccer ma daawataa Ha. okay soccer teamkee taageertaa Manchester United. manchester united ma taqaanaa afar cayaartooy u cayaarta manchester united Ah. magacyadooda Ibrahimovic, aha Rooney, Pogba, De Gea. ma taqaanaa afar ka mid a asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam Abu Bakr, Uthman, Umar, Ali. maasha allah wiilkani su-aashii aan weydiiyey wuu kaliya aan weydiinayay caruurta soomaaliyeed ee ku dhalatay dalka maraykanka caruurtani waxay ku nool yihiin xaafadda siidar oo ah xaafadda ay ugu tira badan yihiin caruurta ku nool magaalada minneapolis ee gobolka minnesota caruurtani ayaa waxaan weydiiyey su-aalo ku saabsan bal inaan weydiiyo aqoonta ay u leeyihiin diinta islaamka iyo aqoonta ay u leeyihiin dalka maraykanka ay ku nool yihiin boqolkiiba 99 waxay ka jawaabeen halka ay ku nool yihiin aqoonta ay u leeyihiin hadday noqon lahayd cayaartooyda iyo hadday noqon lahayd tiimam ka dhisan dalka maraykanka halkani waa xaafadda ay ugu tira badan yihiin xaafadda soomaalida ay ku nooshahay siidar xaafadani ayaa waxaa degan qiyaas ahaan 20,000 oo soomaali dad lagu qiyaasay iyadoo xaafadani caalaaba